Manta, 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 wamali wede manta. Manta, 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 wamali wede manta. Manta, 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 marimba de manta. Manta, 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 wamali wede manta. ومعتندين maanta waxay mudan tahay xasuus waa maalin weyn ee shakhsi kasta ee Soomaali ah ee dareen leh uu dareemi karo xaadda kici karto hanti Soomaaliyeed ee la bilaqeystay ee la dhacay shakhsiyaadkii mas'uuliyiintii safaaradda u xeeteen inay dib u soo celiyaan hantidii ummadda Soomaaliyeed waxaa ku faraxsan shakhsi kasta oo Soomaali ah waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa safiirada oo diplomatic corps ee nagala qaybgalaya munaasabadan qiimaha iyo qaayaha leh oo aan gacanta ummadda Soomaaliyeed dib loogu soo celiyay hanti laga bilaqeystay shacbiga Soomaaliyeed waxaa khudbadii iiga horeeyay ambassador Stefano Dijak ee khudbeeyay waxaan jeclaan lahaa maanta ambassador Dijak inuu ku khudbeeyo afka Talyaaniga sababta waxa weeye dastuurkeena iyadoo lagu qoray afka rasmiga ah waa af Soomaali iyo Carabi afka labaadna waa Ingiriis ayaanu u dagaalamnay muddo 2 bilood ah in afka labaad ee Soomaaliga lagu qoro af Talyaani maanta uu dhex joogo safaaradii dhisneed waagii xorriyadda kala wareegay Talyaaniga oo ay Soomaali lahayd dib loo soo celiyay isla markaana dastuurkii aan ku qoranay af Talyaaniga inuu yahay luqadda labaad waxaan ka sugaynay inuu maanta ku khudbeeyo af Talyaani maana ma rabin inuu af Ingiriisi ee luqadda labaad oo dastuurka ku qoran inuu ku khudbeeyo Ingiriisna wuxuu gumeystay gobolada waqooyi Talyaanina wuxuu gumeystay gobolada koonfureed sidaa daraadeed waa xiiseynayna sida aan gurigaan la wareegistiisa maanta ugu xiiseynayno ayaan u xiiseynayna af Talyaanigii ka lumay Soomaaliya inuu maanta safiirka ku khudbeeyo waa ku maadsan yahay arinta markan ka hadlo safiirka Soomaaliyeed ee Kenya qunsulka Soomaaliyeed ee Kenya saraakiisha Soomaaliyeed ee safaaradda Soomaaliya shaqaalaha safaaradda Soomaaliyeed hadday yihiin Soomaali iyo Kenyaanba inta gacan ka geysatay garyaqaanadii guud ee muddada badan u dhabar adeegay inay hantidan qaran oo la bilaqeystay ay soo celiyaan waxaan leenahay bogaadin iyo ammaan ayaanu u soo jeedinaynaa safiirka iyo qunsulka Soomaaliyeed iyo intii gacan ka geysatayba arrintaani muddo badan ay soo socotay idaacadaha lagala socday Soomaaliya oo dhan gobolada Soomaaliya lagala socdo in maanta si khayr badan loo soo qatimo oo hantidii gacanta ummadda Soomaaliyeed lagu soo celiyo waa xiise weyn oo la miiloobaana Soomaaliya inuu u reereeyo oo ku raaxaysto warkan